bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada durdurka wararka waxaynu idiin soo gudbin doonaa xiisad colaadeed oo kasoo cusboonaatay deegaana hoostaga degmada yoocaale ee gobolka jarar kadib dil naxdin leh oo halkaasi ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaynu idiin soo gudbin doonaa golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ka hor yimid magacaabista dowladda federaalk Soomaaliya ee koonfur galbeed islamarkaana baaq degdega soo saaray. Dhinaca kale Itoobiya oo shaacisay isbeddel ku yimid qorshaheeda siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya. Qodobadaasi kuwa kale faahfaahintooda ayaad halkan kaga bogan doontaan, balse marka koowaad soo dhowow muuqaalkan like sidoo kalena sii share si dad badan xogteena ay u gaarto. Warar kala duwan oo isa soo taraya ayaa ka soo baxaya dil naxdin leh oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano markaasi hoostaga degmada Yoocaale ee gobolka Jarar. Wararka ayaa markaasi tilmaamaya in hal qof oo shacaba lagu dilay tuulada Duudbeedaaley iyadoo dilkaasi loo adeegsaday rasaas, taasoo muujinaysa in falkan uu ahaa mid markaasi si bareera loo fuliyey. Dadka deegaanka ayaa si weyn uga argagaxay dhacdadan maadaama aysan ahayn markii ugu horreysay ee uu dhiig ku daado tuuladan iyo deegaanada ku dhow. Eedeyntan ayaa waxaa markaasi lala xiriirinayaa in ay ka dambeeyaan maleeshiyaad beeleed la sheegay inay ka tirsan yihiin beesha Arab, inkastoo weli war rasmi ah uusan ka soo bixin dhinaca lagu eedeeyey. Dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo aan si rasmi ah uga tirsanayn ciidamada dowladda ay si joogto ah uga howlgalayeen aaggaasi. Ninkan lagu dilay tuulada Duudbeedaaley ayaa xogaha waxa ay tilmaamayaan in uu walaal la ahaa mas-uul hore uga tirsanaa laanta nabadgelyada deegaanka oo isna horey halkaasi loogu dilay. Tuulooyinka Duudbeedaaley iyo Dacwale ayaa horey markaasi u ahaa goobo ay ka dhaceen dagaallo culus oo u dhexeeyay beelo halkaasi wada degan. Dhacdadaas ayaa sababtay khasaare naf iyo maalba leh iyadoo dad badani ay ku barakaceen guryahooda, halka qaar kalena ay weli la daalaadhacayaan saameynta colaadaasi. Inkastoo muddooyinkii dambe ay xaaladdu u muuqanaysay mid degan, haddana dilkan cusub ayaa dib u soo nooleeyay xusuustii colaadahaas, waxaana jira cabsi ah in xaaladdu mar kale ay faraha ka baxdo. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka ayaa bilaabay dadaallo ay ku doonayaan in ay ku qaboojiyaan xiisadda, balse weli lama hayo xal rasmi ah oo la isku raacsan yahay. Dhinaca kale, ciidamada milatariga Itoobiya ayaa maanta howlgallo ka wada deegaanada uu falkani ka dhacay. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada halkaasi ay u tageen sidii ay u damin lahaayeen xiisaddan soo cusboonaatay, ugana hortagi lahaayeen dagaal kale oo ka qarxa aaggaasi. Dadka deegaanka ayaa siyaabo kala duwan u arka joogitaanka ciidamada, iyadoo qaar ay arkaan fursad lagu xakameyn karo xaaladda, halka kuwo kalena ay markaasi muujinayaan shaki ku saabsan sida ay xaaladdu u maareyn doonaan ciidamada Itoobiya. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in ciidamadu ay bilaabeen baaritaano ku saabsan dilka dhacay, inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin cidda loo qabtay ama markaasi lagu tuunsan yahay falka. Dowladda deegaanka ayaa la filayaa in ay war ka soo saaraan dhacdadan maadaama ay saameyn ku yeelan karto xasiloonida guud ee gobolka. Xaaladda guud ee deegaanka ayaa weli ah mid kacsan, iyadoo dadka rayidka ah ay ka cabsi qabaan in rabshado horle ay qarxaan. Qoysaska ku nool tuulooyinka Duudbeedaaley iyo Dacwale ayaa qaarkood bilaabay in ay ka guuraan guryahooda, iyagoo ka baqaya in colaadda ay markaasi dib u soo laabato. Dhinaca kale, golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa si adag uga hor yimid magacaabista hogaamiyaha ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed, iyagoo ku baaqay in la qabto doorasho loo dhan yahay oo ka gedisan midda ay waddo dowladda federaalk Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa soo saaray digreeto uu Jibriil Cabdirashiid Xaaji ugu magacaabayo in uu noqdo hogaamiye ku-meel gaar ah oo uu yeelanayo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Jibriil ayaa hadda ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka, waxaana markaasi uu bedelayaa Cabdicasiis Laftagareen oo awood ciidan markaasi lagu dhaafiyey xukunka. Golaha mustaqbalka ayaa tallaabadan ku tilmaamay jebin cad oo ka dhan ah dastuurka dowladda federaalk iyo kan maamulka koonfur galbeed, islamarkaana ah weerar toos ah oo lagu qaaday tiirarka nidaamka federaalk ee Soomaaliya, sida lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay golaha. Dastuurka koonfur galbeed waxa uu si cad u dhigayaa in haddii madaxweynaha xilkiisa gudan waayo ama uu iscasilo, in muddo 30 maalmood gudahooda lagu qabto doorasho madaxtinimo, ayaa lagu yiri qoraalka golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. Sidoo kale, golaha ayaa ku baaqay in muddo 30 maalmood gudahooda lagu qabto doorasho loo dhan yahay oo ay ku heshiinayaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee koonfur galbeed, islamarkaana si buuxda ugu salaysan dastuurka dowlad goboleedka. Dhinaca kale, Itoobiya ayaa sheegtay in ay joogsatay faragelinta Soomaaliya tan iyo markii uu xilka qabtay ra-iisul wasaare Abiy Axmed 8 sano ka hor, iyadoo qoraal rasmi ah oo ka soo baxay safaaradda Itoobiya ee Muqdisho lagu sheegay in xiriirka labada dal uu udub dhexaad u yahay ilaalinta xasiloonida iyo kobcinta dhaqaalaha.
bayaanka safaaradda ayaa xusay in sanad guurada sideedaad ee xukuumadda Abiy Ahmed ay muujinayso isbeddelka ku yimid xiriirka Geeska Afrika, isla markaana ay Itoobiya ka go'an tahay taageerada Soomaaliya si ay u hesho nabad iyo horumar waara. sanad guurada sideedaad ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxay muujinaysaa isbeddel ku yimid xiriirka Geeska Afrika, iyadoo la xoojiyay iskaashiga Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku qotomay isdhexgal dhaqaale iyo xasillooni, ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda ee Muqdisho ee Itoobiya. Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan dowladda federaalka ay si buuxda ula wareegtay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan maamulka Koonfur Galbeed, kaasoo horey looga arki jiray faragelin siyaasadeed oo dhinaca Itoobiya ka imaanaysay. Arrimahan ayaa imaanaya xilli mucaaradka Itoobiya ay sheegeen in Addis Ababa ay si tartiib ah u lumisay saameyntii ay ku lahayd Soomaaliya. Siyaasiga mucaaradka ee Jawhar Maxamed ayaa sheegay in isaga oo markaasi daba socda dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Baydhabo, waxa uu sheegay in ay tahay markaasi guuldarro diblomaasiyadeed oo kale oo markaasi dowladda Itoobiya ay la kulantay. Hadalka Jawhar ayaa yimid kadib markii madaxweynihii Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu iscasilay Isniintii, kadib markii ciidamada dowladda federaalka ay galeen magaalada Baydhabo. Laftagareen oo muddo dheer loo arkayay siyaasi si dhow ula jaanqaadi jiray Itoobiya ayaa sidaasi ku baneeyay xilka, taasoo noqotay dib u dhac weyn oo ku yimid saameyntii Addis Ababa ay ku lahayd maamulkaasi.